wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Cabdi Macalin Maxamed ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka safmarka ah ee COVID-19. Cudurkan safmarka ah ee COVID-19 ayaa ku sii fidaya guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya, wuxuuna faahfaahin ka bixiyay xogta maalinlaha ah ee fayraska coronavirus. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. dhammaantiin waxaan idin leeyahay horta marka hore soon wanaagsan. waxaan rabaa inaan maanta halkaan ka sheego akhbaaraadkii ugu dambeeyay oo caabuqa COVID-19 ee Hirshabelle ayaan rabaa inaan idin la socodsiiyo. sida aad ogtihiinba waxaa jira caabuqa kan fara ba'an buu hadda ku hayaa dowlad goboleedka Hirshabelle. marka waxaan rabnaa inay dadku ay ogaadaan waxyaabaha halka kan aan ka sheegi doono. waxaa jiray in ay Hirshabelle bishii haddana soo dhaaftay 12keedii uu ku dhintay qof mas'uul ah oo noqday positive noqday oo ku dhintay. waxaa ka dambeeyay oo bisha 7deedii haddana geeriyooday qof mas'uul ah oo reer Hirshabelle ah oo mas'uuliyiinta ka mid ah. marka labadaas qofba oo mas'uuliyiinta ah waxay noqdeen positive bay ahaayeen. labadaas qofba waxay ka mid yihiin mas'uuliyiinta Hirshabelle ayay ka mid ahaayeen. allah u naxariisto, waa u tacsiyeynaa dhammaanba ummadda Soomaaliyeed iyo qoysaskii ay ka tageen. waxaa kale oo positive ah oo maanta hal qof ayaa positive ah. testayaashii la qaaday waxaa positive noqday hal qofna negative buu noqday oo labaduba ay ka imaadeen, ay jowhar ka imaadeen. waxaa horey loo qaaday 2 qof oo balcada oo ayaguna noqday positive iyo qof beledweyne laga keenay oo asaguna positive ah. sidaas darteed guud ahaan testayaasha la qaaday waa 6 waaye. dhimashaduna waa labadaas mas'uul waaye. dhimashadu waa labadaas. waxaan rabnaa marka halka kan inaan baaq uga dirno dhammaanba ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda Hirshabelle. markii hore waxaan ku baaqaynay guryaha in la joogo, in la kala fogaado oo space la sameeyo, in maaskigii iyo laqaata iyo galoofiskii intaas iyo ka badan baan ku baaqaynay. laakiin caawada waxaan rabaa halka kan inaan uga baaqo dadweynaha reer Hirshabelle wacyigelinta ugu horeysa oo ugu badan inay noqon doonto in ay la xiriiraan rugta caafimaadka oo laga sameeyay beledweyne iyo jowhar laga sameeyay inay la xiriiraan. waxaana ku boorinaynaa dhammaanba qofkii xanuun dareema inuu iska qaado testiga, inuu la xiriiro takhaatiirta, inuu la xiriiro testina uu diyaar u noqdo. dhammaanba dadka dhintay allah u naxariistee, dadkii ay la xiriireen oo faamilkooda ahaa iyo saaxiibadood, waxaan ku boorinaynaa haddii ay xanuun dareemaan inay nala soo xiriiraan oo testi laga qaado haddii aan la idmo. wacyigelinna la siiyo oo talooyin iyo advice la siiyo ayaan ku wargelinayaa. Hirshabelle ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada oo sida ba'an ugu sii fidayo cudurka safmarka ah ee COVID-19, iyadoo cudurkan hore ay u geeriyoodeen 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle. Mahad Axmed Cali Sow, TV-ga caalamiga Horyaal, magaalada Jowhar.